بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. daawadayaal kusoo dhawaada warka caawa. taariikhdu waa 16 bisha September 2025. waa habeen Jimcaha. qodobada warka caawa aan ku haynayna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore dalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Ahmed ayaa isagu ka hadlay mudaharaadkii loo balansanaa maalinta Sabtida ah ee Brito ah inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, taas oo laga soo horjeedo tacadiga ay dawladdu ku hayso dadka la barakicinayo ee guryahooda iyo dhulkooda laga barakicinayo ee laga qaadayo. shaqaaqadii ka dhacday 25 September ayaa waxa ay keentay in ay madasha samata bixintu ay ku dhawaaqaan mudaharaad kaas oo isagu ay ku muujinayaan inay ka soo horjeedaan dictatornimada iyo dulmiga lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho. haddaba madaxweyne Sheekh Shariif hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sidan daawasho wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore dhalinyarada ay hortaaganayaan saxaafadda waa idin salaamayaa. salaan kadib waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. warka ugu horeeya waxa waaye waan rabaa inaan idin sheego saacadan la joogo waxaa la xiray nabadoono ani waliba nabadoonadeedii khaaska ah oo dhowr iyo 20 oo ka tashanayay arrimaha ka jira dalka. nabadoonadaas waxay ahaayeen nabadoono waqtigooda ku bixiyey xilligii adkaay dadku inay wada noolaadaan. marka habeen hore cawada aan joogno maahan xalay waxaa la socoteen 3 kale nin wasiir ahaa jiray nabadoon ganacsada la xiray. waxaana loo xiray arrinta ay ka dhiidhiyeen oo ka dhacday Siinay. dadka la barakiciyey, la jirdilay, la jiiday, la dhibaateeyey darteeda ayaa loo xiray. marka arrintaas horta waxaan u aragnaa nasiib darro. waa cambaaraynaynaa. waxaan leenahay dadka xiranna hala soo daayo. waxaa ka sii horreeyey 2 nabadoon oo mid magaciisa aad taqaaniin nabadoon xaadoole la yiraahdo iyo nabadoon kaloo la xiran oo iyagana iska xiran. dowladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci. dadku xuquuq siman ay leeyihiin, waajibaad siman ay leeyihiin. haddaa madaxtaha macnaheeda ma aha inaad samayn karto wax adiga aad rabto. marka waxaa nasiib darro ah dadkii halkaa lala joogay ee xorriyada u dagaalamayay ee dadka ugu qaylada badnaay markay madax noqdeen inay maalin walba dad la xiro ay shaqo ka dhigtaan iyadoo dalkan ay taalo 100 howlood oo muhiim ah oo ay ugu weyn tahay amniga dalka, wadajirka dalka, dhaqaalaha iyo adeegyada kale loo baahan yahay. waxaan leenahay dowladda shaqadeeda ha qabsato, shaqada loo idmay ha aado, aysan ku mashquulin dad xorriyaadkiis iyo xuquuqdiis. waxaa la socotiin annaga maalin dhaweyd dad la dilay, la jirdilay, la jiiday oo waayeel ah oo dadkeedu oo noo yimaadeen annagoo booqanayna wixii nagu dhacay. inna la weeraray, la isku day in la dilo, ilaahay naga soo badbaadshay. waxaad markhaati ka tihiin annagoo dhahayna xabad ridina in xabada nagula furay. kadibna la is abaabulay oo been la wada sheegay madaxda dawladda. horta waxaa nasiib darro ah raganimada iyo dadnimadu waxa waaye wargifkan waa dhacay, khaladkan waa dhacay, annagoo naga dhacay, waxaan diyaar u nahay inaan xallino. laakiin dawladdii oo dhan ninka ugu weyn iyo ninka ugu yarana been isku difaacaan waa nasiib darro. saldhigga maalinka annaga aan tagnay xabada ninka la bilaabo waa la yaqaan, xabadaha la riday waa la yaqaan. waxaa marka nasiib darro dad waaweyn inta meesha tagaan ay dhahaan xabaddu inta kama dhicin xaggay ka soo dhacday ayadoo ay muuqato xabaddu meesha ay ka gashay albaabka iyo meesha uga baxday. marka waxaan rabaa qodobka kale oo mudaharaadka ama banaanbaxo waa xaq dastuuri ah. dastuurka dalka ayaa ballan qaadaya qofku inuu cabiri karo dareenkiisa qaabab kala duwan. kulamo la samayn karo, mudaharaad la samayn karo, laakiin shardi waxaa ah mudaharaad nabadeed inay ahaadaan. waxaa la socotiin madashu waxay ku baaqday mudaharaad nabadeed. mudaharaadkaas rabsho ma wato,
dagaal ma wato qoryo ma wato ujeeddadiisu waxa waaye in lagu garab istaago dadka la barakiciyey dadka guryahooda habeen madow iyagoo joogaan 9 saac oo habeennimo laga barakacshay oo ay ka mid ahaayeen ninkii waayeelka ahaa injineerka ahaa meeshaan noogu yimid ee baalaha afkiisa ilaahay ka soo badbaadiyay iyo dadka la midka ah marka waxaan leenahay dowladda amniga anaga fargelin kuma hayno culays kuma hayno laakiin waxa waaye xuquuqda dadka Soomaaliyeed ma dudsii kartiin waxaan rabaa aydan inaan ka hadlo waxaa la socotiin ciidamo in lagu soo wareejiyo meeshaan hadda mucaaradku ku badan yahay ciidamadan soo ma fiicneen inay aaga dagaalka aadaan oo dalka ay xoreeyaan oo ciidamada walaalahooda oo ku jira dagaalka ay garab istaagaan beebayaasha waxaan aaminsanahay qof dhihi karaa ma jirto annaga hadda macina dhibaato ku haynaa jirta istaafyada aan wadano kuwa shalay aan wadano madaxtooyaan ku tagi jirnay isbitaaladaan ku tagi jirnay saldhiga inaan ku tagno maxaa diiday saldhigu horta sidiisaba in la fahmaa la rabaa waa goob cadaaladeed booliisku wuxuu la shaqeeyaa maxkamadaha wuxuu la shaqeeyaa cadaaladda mucaaradka tagaaya muxaafadaad tagaaya qof gaar oo ma jiro hay-ad la rabo dadka inay u dhaxayso waa marka in anigu tago oo mid kala tago oo mid kala tago oo yiraahdo qofkan saan ku xiranaan daba socda xaq u leeyahay marka dadka dhahaya maxaa loo tagay maxaan ku iraahdaa saldhig way khaldan saldhiga waa la tagaa maxkamadda la tagaa maxay la dawladdu la wada leeyahay mase macnaheedu waxa waa dawladda anaga askari adinka meel lama tagi kartiin sax ma aha taas dawladdu la wada leeyahay waxa la rabaa marka dawladdu inay fahamto mas'uuliyaddeeda kana leexato xurriyaadka dadka xurriyaadku waa waxa ugu muhiimsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ballan qaaday dastuurada ay ballan qaadeen bani aadamkan Ilaaha karaamiyay sabab loo ihaanaysan karo bani aadamka ma jirto bani aadamka haddii la ihaanaysto walaalka haddii la dhibaateeyo adiga la dhashay ama la jooga ama Soomaaliga waxa waajib kuga inaad garab siiso waxay ka mid tahay wixii maxkamaduhu ka kaceen dadka dhibaaya ee qoryaha wata in laga hortago ciidankeena qalabka sida ee sharafta leh ee la marin habaabinayo waxaan ugu baaqaynaa awaamirta baalmarsan sharciga iyo dastuurka inaysan fulin xaq looguma laha inay fuliyaan annaga yani waxaa la socotiin hadda waxaa la yiri maba dhaqaaqi kartiin qoryo ma qaada kartiin taas macnaheedu ma fahamsantiin waxa waaye shaabka idin dilo gacan qarsoon aan ku dileena ma yeelina taas gacan qarsoon inay dawladdu nagu disho oo shabaab noo adeegsato oo hubka dhigana dhaho ma aqbaleen maxaa aqbaleena waxaan aqbaleynaa siyaasad hubka dhigid oo loo dhan yahay oo laga wada hadlo oo la yaqaan koowa labo waqti ku habboon oo amniga uu sugan yahay saddex in hubka meeshu uu ku noqonayo la wada ogyahay intaas day dhacdo annaga waxaan ogolnaa hubka inaan dhigno laakiin hubkan annaga madaxaan ahaa jirnay waanahay hadda khatar oo amniyaan dareemaynaa dawladdu weli kama adkaanin al-shabaab maalinta laga adkaado oo laysu yimaado oo lagu heshiiyo siyaasad hubka dhigiseed annaga ugu horeeya dadka hubka dhigaya laakiin annaga guryaheena joogna in la yiraahdo ciidan aan ku wareejiynaa ma dhaqaaqi kartiin arrin aqbalayna ma mar kale waxaan ku celinayaa dadka xiran oo kuwa aan sheegnay ay ka mid yihiin iyo kuwa aanan sheegin oo cadaalad darrada u xiran hala soo daayo aad iyo aad u mahadsantiin waa tahay daawadayaal sida aad wada daawanaysaanba sheekh shariif waxyaalo badan ayuu si fiican uu gartiisa u qaatay xaqiiqda marka laga hadlo waxa uu yidhi anigu hubka dhigi mayno ilaa inta amni saxa la helayo oo al-shabaab laga adkaanayo taasi oo ah xaqiiqda dhabta ee jirta magaalada muqdisho ilaa al-shabaab laga adkaado oo amnigu uu ku soo noqdo si caadi ah siday ahaan jirtay muqdisho wixii ka horreeyey sagaashameedkii markaas oo keliya ayaanu hubka dhigi karnaa ayuu leeyahay sheekh shariif axmed waa tahay daawadayaal
wararka hadda na soo gaadhay waxay sheegayaan in mudaharaadka berri loo ballansanaa laga yaabo in dib loo dhigo wadahadallo hadda socda aawadeed laakiin wixii soo kordhaa wararkaasi dib ayaannu idinka soo sheegi doonaa dhinaca kale dowladda xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre waxa ay isku soo aruuriyeen ciidamadoodii magaalada muqdisho halkaasi oo ay xoogga saareen sidii ay uga hortegi lahaayeen mudaharaadka berri inuu dhaco taas oo iyagu ku ah wejigabax weyn maadaama haddii mudaharaad dhaco ay iman doonto in xabad nool laisku adeegsado maadaama mucaaradka samatabixinta madasha samatabixinta iyagu qudhoodu ay ciidamadoodii soo geliyeen magaalada muqdisho kuwaas oo iyagu ku gaashaaman gawaarada tiknikada iyo infantry intaba lama garan karo xaqiiqda dhabta waxa ay noqon doonto balse waxaynu ka war sugaynaa wararka dambe ilaa caawa soo baxa ilaa berito in mudaharaadkaasi dib u baaqdo iyo in kale waad mahadsantihiin intaaynu dib u kulmi doono waa mustafa cabdullaahi odinleh isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu